madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Ciise Kayd. Kulanka ayaa labada dhinac kaga hadleen sii xoojinta xiriirka iyo iskaashiga dhinacyada danaha guud ee labada dal Somaliland iyo Jabuuti. Mudane Ciise Kayd Maxamuud oo uu wehelinayo saaxiibkiisa difaaca ee Mudane Cabdikariin Maxamuud Caateeye waxaa kulanka ay la qaateen madaxweynaha ku wehelinayay safiirka Somaliland u fadhiya wadanka Jabuuti Cabdifataax Siciid Axmed. Markii uu kulankaasi ka dhacay qasriga madaxtooyada ee uu ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland soo dhamaaday ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti oo faahfaahiyay wixii ay ka wada hadleen madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti iyo wafdiga uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland. aad baan u salaamayaa ummadda Jabuuti madaxweynaheeda dawladda safarkani safar aad u qiimo leh ahaa oo sidoo kale Jabuuti waxaan ku leeyahay ciraq dheer oo in badan baan ku noolaa qodaydo aad iyo aad baan ugu faraxsan in la kulmo madaxweynaha wasiirkan sharafta leh aad ii soo dhaweeyay waxaan ka wada hadalnay dan labada dal ah oo nabadgelyada inaan ka wada shaqeyno socodka inaan ka wada shaqeyno inuu ninka kale dalka kale uu ka ilaaliyo in dadka dhibaatooyinka keenaya oo ka foojignaado marka la is ilaaliyo in dadka ummadani ay ilaahay halkan ku sameeyay Jabuuti oo halka mapka ku oleyso waligeed Somaliland halka mapka waligeed ku oleyso saas daraadeed in la wada shaqeysto wax la isweydaarsado bayaan shardeen qoto haday noqoto dhaqan iyo dhaqaale kulay marka hore xiriirka Somaliland iyo Jabuuti waligeed wuu fiicnaa marka inaan halkii hore ka sii ambaqaadno sii wadno oo dadkan walaalaha iyo dhulkan maaragtay labada ummadood walaalaha in aanu sii kordhino hore u sii qaadno ayaan filaynaa sharafay nootay marka siyaasadda arrimaha dibadda marka cusubna waxa inaan dal walba xiriir la yeelano kan laakiin wuu nooga dhaweeyaa annaga cid walba uga dhow iyaguna cid walba way nooga dhaweeyeen Maxamed Jaamac Waale warbaahinta qaranka Somaliland Jabuuti.